xujayda sanadkani ay u suura gashay inay gutaan waajibaadka xajka ee ku sugan magaalada Maka al-Mukarrama ayaa waxay cabasho ka muujiyeen shirkadda diyaaradaha ee Juba Airways waxay sheegeen in aan shirkaddu mas'uuliyad ka saarin soo celintooda telefishinka waxa kula soo xidhiidhay Xaaji Barkhad Axmed oo kamid ah xujayda sanadkani ee reer Somaliland ee ku sugan magaalada Maka al-Mukarrama ugu horeyna waxaan weydiiyay waxa uu ka cabanayo waxaana soo qaaday markii hore Soomaaliland naga soo qaaday diyaaradda Juba markii noo dhamaatay waxay 9 ilaa 10 bishii dib baan waddankeedii ku celinaynaa kadib deetana ay muqdisho ay baxaan ayaa idinka leeyihiin dhexgelinaya maadaama dad yar oo aadliifkiisa kale ka soo xasay Soomaaliya kadib deetana haddana kowdii bisha oo ahayd maanta ay naba ballameen yiraahdeen dib baa la yiri celiya ina way suurtoobi weydii kadib deetana ujeedista boqol ee ka soo xasay Soomaaliland runtii way kacday maanta waa la isku wada yimid iyagoo dhaliilaya shirkadda Juba qaabkii wuxuu wada iyo sidkanay dadka wada macaamilka xujayda ay kolba beenta u sheegayso haddii mar hore u sheegi lahaa lama 10 bisha waqtiga dheedkaas ayaa la qaaday dadku dib ma laha laakiin dadkii waqti markay ay waqti ku ka soo gaabtay wax laga yaabaa dadka qaarkood ay tahay inay ka dhamaadeen wixii ay sahaydii ay isticmaali lahaayeen inay ka dhamaadeen haddana waxay yidhahdeen bri ayaa la eegayaa bal hadda in qolada muqdishiin ogolaadaan boos in la gisiyo sidoo aad u baxdaan adigu waxa weeye wali wax aan qof way noo yimaadeen maanta shalay way noo yimaadeen hadaloodu wasnaafay mar waxay nagu dhan diyaaradda xumaatayba taasi waxay noqotay inay been noqoto diyaaradda ayna xumaanay laakiin ay hawlo kala hal wataan adigu maanta waxay nagu yiraahdeen mar ay noo yimaadeen markay arkay dadkii oo kacsan inay yiraahdeen alad weyn baan ka galay dadka reer Soomaaliland laakiin waxaan sameeynaa in iyaga sidii ugu dhaqsaa fadan lahaa inaanu bari ama saa dambe aanu sameeyno inaanu dib u celino geestiisa maamulaha guud ee shirkadda Juba Airways Khadar Cawil oo telefishinka bulsho intaasi kadib la xiriiray ayaan ugu horeynba weydiiyay waxa ka jira cabashada xujayda ku sugan Maka al-Mukarrama waxaan uu Khadar igu jawaabay waan ognahay runtii oo qof kaliya lagama qaadin dayana oo dhan flight koowaad Juba Airways shalay ku yimid runtii shalay flight koowaad yimid maantana bisha dilxij waa 22 runtii waa runtooda oo dadku way saxsan yihiin oo falaydadu xilligan oo kale 3-4 falayd way ma jireen laakiin cabasho inta leego dib loo sii dhigo 5 maalmood falayd dib loogu dhigay ma jiro falaydadu sideedaba 3 maalmood iyo 2 maalmood way u dhaxayn karaan falaydada oo shirkaduhu way ogyihiin iyaga xujaajta dadka laftigooda ogyihiin oo daily flight waxaan ma yimaadaan ma garab waan gartay marka waa sidaas walaal insha Allah bi laakiin anaga yara oo ilaahay waafajiyay sanadkan xajaan dadka qaar waxay leeyihiin kharashka waa naga go'ay shirkadda Juba Airlines dib u dhac ku yimid iyada daraadeed dadka masinay kharashka halka ku sii joogayaan muddaday ku sugan yihiin horta iyadoo Juba la eegay islaamnimada ku fiican tahay anagu dadka masaakiinta ba sheegay xujaajta meesha cunta loogu diyaariyaa hoteelay degan yihiin transportation ay mataajka ku tagayeen waa u diyaar runtii dadkeena waxaad moodaa fudayd farbadin inuu ku jiro marka xaggan laga baxayana waa area oo naqaaday weeye marka xagga la joogan anigu talaaban siin lahaa dadka cuntadii maadaama ay helayaan guriyihii ku jiraan haba yaraatee masaajkina transportation iyo basaska u diyaar yahay masaajka inta flight-kooda qofka flight-kiisa laga dhigo ha iska sabraan runtii taasaba ku talin lahaa waxa yaraatee dhibaato xujaajta haysataana ma jirto wax faragelin dawladda Soomaaliya ay ku leedahay xajka markii hore iyo hadda toona taas runtii horta berigii sanad markii barbilowga la taagnaa xujaajta inaad fiisayaasha xajka la soo saaray fargelin bay ku lahayd laakiin xagga falaydada iyo nidaaminta dadka haba yaraatee wax dawladdu shuqul ay ku leedahay ma jirto walaal Luqmaan Maxamed Farax Bulsho TV Hargeysa